Salma waa 12 jir gacmaheeda ku weyday waxyaabaha qarxa waxayna caan ka tahay baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok. dhaawaca adag ee gaaray Salma waalidkeed waxay ku abuurtay waqtigaasi in uu soo afjarmay mustaqbalkii ay dunida ku lahayd inantooda balse Salma ma aysan muujin quus oo waxay door fiican ku leedahay nolosha qoyskeeda sida hawsha guriga. waxay xasuusan tahay sida uu xaalku ahaa kolkii bir ay ku ciyaaraysay ay ku qaraxday waxaana la joogay xilligaasi 2 caruur ah oo la dhalatay. waxyaabo qarxayo liikene garaacay magac garaacane ay u qarxeen anuu horta dhibaato xoogaa weyn yeersiye labadiis gacmood ku waaye sidoo kale inta dhaawacay gaar jilibkan waa liig tole. birtan waa birtii Salma Yariisay gacmaheedu ay sababsadeen ayadoo badda 7 sano jirto oo aad u yar iyo caruur la dhalatay ay birtan waxay ku garaaceen bir ka samaysan waxyaabaha qarxa dabadeed birta ayaa qarxday waxayna ku weeday labadeeda gacnood sidoo kale jirkeeda waxa soo gaaray dhaawacyo kale. Niciima Cabdullaahi waa hooyada Salma Maxamed Abshir waxay hooyooyinka shaqeeyo ugu baaqaysaa in caruurta ay ka warqabaan oo ay ka fogeeyaan biraha ay ku ciyaari karaan hase yeeshee qatarta xambaarsan. waxaan horta dhibaatada waxay nagu soo gaartay waayo hooyooyinka markay salaadii shaqo tagaan habeenka imaanayo aan ka warqab la'aanta waxay dhibaato ka dhaltaa ka warqab la'aanta qoyska ilmaha iyo hooyada waayo hooyo salaadii shaqo tagtaa guriga dib ugu soo noqoto ilmihiina halkaas ay beelaha ku noqday aniga dhibaatada waxay iga soo gaartay subax markii waag mariyaan ka shaqo tagay maqribka markii la gaarina dhibaatada guriga ay ka dhacday marka waxaan hooyooyinka codsanayaa inay ilmaha la xiriiraan ka warqabaan marna ay suuq aado marna ilmihi ka warqabto maadaama ayadii sanadkan shaqada u barato hooyooyinka Soomaaliyeed ilmaha waxaan leeyahay ilmaha Soomaaliyeed kulliba muuqaalkan ay arkaa daawanayaan inay ka foojignaadaan waxyaabahaas xitaa hadii aysan u eegin wax lagu ciyaaro inay isku taataaban. waxay qadaw karinaysaa walaalaheed oo waxbarasho ku maqan si marka ay yimaadaan ay u helaan cunto ay cunaan. walaalkay farxaan soo socdo waxaa rabaa inaan qado u diyaariyo qadadina intuu imaanay inaan ka tijaabo ayadoo diyaarsan inuu imaado. waxay bulshada u gudbisaa muuqaalo wacyigelin iyo shactiro iskugu jira ayadoo ay wehliyaan koox dhalinyaro ah oo isla sameeyaan muuqaalada gaagaaban. wariyaa bunka kaalay baa Salma ciyaar suuqi oo Abu Ahmed tamam baan artay ma bunka ma sheeg Ahmed ma sheegaysa Ahmed maanta wuxuu jiraa sabta wariyaa sable aniga xooga ugu faanay miyaa waa dilay maadaama uu dib ka soo gaaray haraadiga walxaha qarxa. Salma waxay si gaar ah caruurta u wacyigelisaa in aysan ku ciyaarin biraha aysan aqoonta u lahayn. horta muuqaalo waxa way wacyigelina waxaan ka u sheegaa dadka caruurta in ay waxyaabaha qarxo iyo birarka in iska ilaaliyaan ee mar walba oo ka feejignaadaan isu taaban. dhanka waxbarashada Salmo waxay dhigataa Quraanka Kariimka oo wali lama geyn waxbarashada iskuulka waxayse go'aankeedu yahay in ay bilowdo mustaqbalkana ay noqoto digtoorayso dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba caawisa. digtoorayso jecla inaan dadka caawiyo dadka masaakiinta daaweeyo alaas jecla. sheekadan waxay qayb ka tahay dhibaatada laga dhaxlay colaadihii dalkeena soo maray oo ay ka dhasheen qatarta hubka haraadiga ah waxaana dhibana u ah caruur badan oo Soomaaliyeed taasi oo ay ku waayeen xubnahooda qaaliga ah qaarkoodna ay ku dhinteen. Sucaad Cabdi Casiis Daahir, Muqdisho.